wiilkan xanuunsan waa wiil walaalkay oo aniga iga yar qisada uu la xanuunsan yahay waa qiso jacayl ah gabar uu guursado oo qabay muddo adiga 3 bilood uu qabay ayuu safar yar ka aaday oo shaqo ah intuu safarkii ku maqnaa gabadhii oo guriga aga tagtay iyada nin kale guursatayba kadib ilaa waqtigaas iyo hadda waalidu markaas uu bilaabay sabab tanaaba xataa dhan walba quraan walba la saaray si walba oo baxayba wax isbedel aan ka haynin halkii markuu u soo laabtay kadib ayaa waxa uu tagay gurigii gabadhii oo lagu qabay kadib markuu arkay xaaladda gabadha ay tahay oo soo isla hadlay oo inta meesha uu ka soo bilaabay oo ilaa hadeertaan saan uu ku yahay waalid isla hadalkii umba hadda xaaladda saan ay ku maraysaa hadeertaan aan la hadlayo walaalkay ma arki karo wax dumar oo dhan hadduu isha oo saaro uu oyna galaas biyo haddaan rabo inaan siiyo magaceeda waa inaan u soo qaadan iraaw ay ku imaanaysaa walaalo biyahan cab walaalo cunadan cun way ku imaanaysaa naas ku saboona hataa hurdo hataa markay qabato ayra walaalo ay ku imaanaysaa sax wax yar ka bacdi intaad hurdin ba ida ku imaanaysaa sheekadaas un baan ku hayaa bees kale waa ku haylaaya walaalkay xaaladiisana xaalad waalidkii ugu xumaado ugu dambeysay ayaa maraysa waasada dad ugu jeedaan walaalkay aad aamus walaal aamus marka magaceeda ma sheegaya magaceeda afka ka maqaaday walaal marka waxa dhaqtar xayob maxluuqi baa marka دكتور حبيب اسك داف لا وقت عنده aan cuna laheena waqtin waa helna waqtin waa waana دكتور حبيب maxaan ku geeyaa mar asal ila dhashaa aniga la qaraab aadila anigana asma ilaaliya ma waxaan soo qaraba ani asaas ku dul rafaasana saana isku gaajeysana waxaan siiyay hadda dhaqtar iska dhaaf waxaan u siiyay hatta maay saakin la hadirtan wiil afkiisu ku jooga soo kacawa Soomaaliya qofka hatta waxa bii awoodan muuqaalkana ha ii sheer gareey walaalaheena kala soo igu gaaro walaal تلفون برملاذا نمبر كذا 3 فرع هي 24 هي 82 هي 60 هي معك قرن محمد علي